waxbarashada dalka ka shaqeeyo si aan wax u toosinno. Codsiga waan ka aqbalay dalkiina waxaan ula qabsaday si degdeg ah. Intii aan waxbarashada dalka ku jirnay waxaanu isbarannay wadaaddo aqoon degan u leh diinta Islaamka. Waxay ahaayeen wadaadadii dariiqa san igu toosiyey. Waxay lahaayeen maktabad islaami ah oo ay yaalaan kutub aqoon diimeed laga baran karo. Rag bay ahaayeen ogol in lala doodo oo qofka u jihaynaya dhinaca Eebbe. Runtii aad baan culimada uga helay. waxaan la qabsaday madaaristoodii iyo maxaadirooyin ay jeedinayaan. waxay bareen af carabeedka, axaadiista nebiga iyo qur-aankaba. Ajuuma markuu arkay xaaladayda wuxuu ku qancay inaan halkan ku noolaan karo. wuxuu i tusay weji kii hore ka duwan oo dareen jacayl ka muuqdo. bacdama aan noqday gabadh asturan oo fahantay fiqiga iyo tawxiidkaba, wuxuu markan go'aansaday inuu guur ii soo bandhigo. arooskaygu wuxuu u dhacay hab waafaqsan diinta Islaamka. hanashada ajuumana waxay ka mid ahayd halgamo dhowr ah oo aan u gacan qaaday kuna guulaystay. liibtase waxaan marnaba lala wadaagi karin Eebbaha awoodda badan. waxaan noqday qof reer Gambiya. inkastoo aan aad u jeclaa Yaxya Ajuuma, haddana cajiib bay la ahayd inaan nin madow qol la dego. aad buu u feedha weynaabay tiri oo wuxuu ahaa mid quurin jiray. sankana wuxuu ku lahaa timo xitaa markii dambe cirro noqday. wuxuu ahaa wadaad suufi ah oo wardi badan oo foox iyo luubaanshidasho badan. ugu dambayntii waxaan ku guulaystay Ajuuma inaan ka soo wareejiyo suufinimadii. wuxuuna ka raystay safaradii uu u geli jiray qubuuraha iyo shakhsiyaadkan ku jira oo uu ka aqoon iyo caqli sarreeyo. waa kan Ajuuma oo culimmadii aan diinta ka bartay ku xidhmay oo godh weyn yeeshay. waxaan ahayn laba qof oo akaademig ah oo aad isu yaqaanaa. waxaan ku noolaannay nolol ay ku ladhan tahay xiise iyo farxad. 1969kii waxaan ku mahadinayaa Eebbaha noogu deeqay wiilkaygii curadka ahaa. waa Abubakar oo aan ugu magac darnay saaxiibkii koowaad ee nebiga. sannad kadibna waxaa dhalatay Faaduma oo aan ugu magac darnay gabadhii ugu yarayd ee uu dhalay Nebi Maxamed. Gambiya waa dal yar oo dhaqaalihiisu hooseeyo waxbarashadiisuna liidato. aniga iyo Ajuumaba shaqo badan ayaannu dhanka waxbarashada ka qabannay. aqoonta oo kor loo qaadaana waxay ahayd hadafka koowaad ee Ajuuma. si uu dhanka waxbarashada u xoojiyo wuxuu joojiyey shaqadii bangiga, wuxuuna diiday jagooyin sarsare oo loo soo bandhigay. wuxuu aaminsanaa sida keliya ee wax lagu beddeli karaa inay tahay da'yarta oo hela waxbarasho dhammaystiran. taasina wuxuu aaminsanaa inay ku jahayn karto dariiqa horumarka. si aan hadafkiisa kobcinta waxbarashada u taageero waxaan iibiyey 1 guri oo aan ku lahaa UK. lacagtii ka soo baxdayna waxaan ku dhisay 5 iskuul. waxaa la soo gaadhay 1994kii. Ajuuma wuxuu isu diyaarinayaa safar dheer oo uu ku tago tuulo aan iskuul ka dhisnay. qorshuhu waxay ahayd inaannu halkaa isu wada raacno, laakiin waxaan uga baaqday wiilkayga oo ku safarka baabuurta kuma tegi jiray. waan sii macasalaameynay. waxaan u rajaynay safar wacan. waa kaasoo uu sii libdhayaa. waxaa marba sii naaqusaya guuxa baabuurkiisa oo naga sii fogaanaya. marnaba maankayga maan gelin 30 sano oo noloshayda saamayn uu ku lahaa Ajuumaha sii socdaa inuusanba dib noo soo jalacayn. dhawaaqa ambalaaska ee dhegihiinna ku soo dhacay mar walba oo dhegaheenna ay ku soo dhacaan waxaynu filnaa war xun oo dhiilla xambaarsan. waddooyinka Afrika oo raf u badan iyo wakhtigiisa oo soo idlaadayba Ajuuma safarkii uu ku baxay kamuu soo laaban oo shil baabuur ayuu ku geeriyooday. inkastoo Ajuuma godgolay, laakiin weli waxaan ahay gabadh reer Gambiya. halkan baan sanooyin badan oo kale ku sii noolaa. laakiin 2000 ayaan UK mar kale deegaan ahaan ugu soo laabtay aniga iyo carruurtaydii. markanse waxaan ahay qof howlgaba. inkastoo aan tacliinta xoog gelinay, haddana Gambiya waxaa jiray
hirar qofkii isku dayaa inuu ka hortago uu ku hafanayo. hirarkaasi waa kuwa musuqmaasuqa oo ciribtirkiisa loo maaro waayey. diintu ma oggola musuqa, ammaanadana meel adag ayay iska taagtay. haddana dadku inay hantida dawladda xadayaan ka daali maayaan, waayo diintuba waxay u tahay habdhaqan ah. aniga oo diinta dhowaan qaatay, waxaan aqbali karo ma aha inaan dembiyada sidaa u waaweyn aan si fudud ugu dhaco. waxaad arkaysaa qofkii kaa waaninayey oo isagu falaya wixii uu kaa waaniyey. UK aad bay isu beddeshay. waan ku farxay markaan arkay caddaankii iyo madowgii iyo bulshooyinkii oo aad isu dhex galay iskuna milmay. waanse hubaa dadka ila filka ahi inay aad u dhibsanayaan, waana wax iska caadiya dadka cimriga dheer helaa iyaga oo yaaban, oo isbeddelka adduunkan ka dhacay ka yaaban oo ka ashqaraarsan inay geeriyoodaan. waana xikmadda dhimashada iyo geeridu xambaarsan tahay, in casri kastaba dad la qabsan karaa ay joogaan. waxaan eebbe ku mahadinayaa inaan muslin ahay. waxaan ku faraxsanahay shaqo badan oo tabarruca inaan dad mudan wakhti mudan la qabtay. waxaan aaminsanahay inuu noloshaydan macno u yeelay Yaxyaa Juma. cabbirka aan taa ku gartayna waxaan nolol ku soo gaadhay in adeertay oo aanu isku fasal ahayn, waxbarashada iyo shaqadaba heer sare ka gaadhay, ahaydna marka miisaan la saaro wakhtigaa qof guulaysatay. kolkii aan ugu tegay iyada oo guri coosh badani dhex yaalla ku jirta, shaqana ay uga soo hadhay ey weyn oo ay marna bannaanka u saarto marna soo celiso. derbiyada waxaa ugu dheggan sawirro aanu beri aanu yaryarayn wada galnay, oo laftoodu niyadjab iyo quusku ugu filan, waayo waxaa cajiib ah in qofka aad beri ahayd maanta aadan ahayn. waxaa la yaab ahayd kolkii ay guddoonsiisay qormo aniga ay igaga warramayso oo ay cuwaan uga dhigtay walaashaydii luntay. niyadjabka ugu weyn waxa ugu wacan iyada oo nolosha adduunka ay joogto gabtay, midda dhimashada ka dambaysa ee aakhirana rajo weynaan ka qabin, oo aaminsanba geeridu inay tahay nasiib xumayada soo waajahday. keligeed ma ahayn ee dhammaanba barbaartii beri haystay idaacadaha iyo jaraa'idada UK, inta maanta nooli mid kastaba isagoo asaasaq ah ayuu guri cidlaa ku nool yahay. qaarkood inta ilowshiyo ku dhaceen inay ku gartaan iskaba dhaafe, iyaga ayaan garan karin qofka ay bulshada beri ka ahaayeen. aniguse haddii ay doonto yaysanba dhicine, waxaan qabaa oo ku hamiyayaa rajo ah ajuuma inaannu mar kale jannooyinka carafta badan nolol aan dhammaad lahayn ku wadaagi doonno. taasi waa yididiilo iyo naalood wanaagsan oo aad kaga qanci karto maalmihii wanaagsanaa ee dunidan oo aadan marna soo ceshan karin. waxaan kaloo haystaa laba aan dhalay oo waajib u arka inay xanaaneeyaan, dhulkana aan ii quudhin, sidaa daraaddeedba wax warwar ah nolosha kama qabo. waan ku faraxsanahay wixii aan soo qabtay. 33 sano oo aan Afrika joogay, waxaan galay safaro badan. waxaan tegay waddamo ay ka mid yihiin Senegal, Mauritania, Suudaan, Egypt oo aan booqday jaamacadda Azhar. waxaan kaloo tegay magaalooyinka barakaysan ee Maka iyo Madiina oo aan xaj u tegay. kulligoodba dhulkii aan marayay waxaan booqanayay goobaha cilmiga. waxaa aad ila fogaaday il ay ii furtay luuqadda Carabiga oo ah luuqad wax badani ku qoran yihiin. kutub tirabeel ah ayaan waddamada aan tegay ka soo ururiyey, kuwaas oo aan doonyo iyo maraakiib intaan ka soo buuxiyey aan Gambiya ka soo dejiyey. gurigaygii Gambiya intaan dumiyey oo dib u dhisay ayaan ka dhigay maktabad weyn oo cilmi diineed iyo mid aqooneedba loo soo doonto. intaasina waxay ahayd dulkaxaadin qayb ka mid ah noloshaydii maalmaha dunida. weli waan joogaa oo waxaan ku jiraa laakiin moortadii noloshayda u dambaysay. waxaan xaqiiqsaday inaan u jahaystay wakhtigii aan dhaafi lahaa dunidan, ama aan soo qaatay maalmihii aan ku lahaa adduunka. waxaan ku faraxsanahay dhammaan waayihii kala duwanaa ee aan soo maray. waxaa mahad iskale eebbahay siiyey caafimaad wakhti badan, iguna garab galay howlo badan oo aan ku guulaystay, haddana isaga ayaan magan u ahay. Amelia waxaa tii alla u timi 28 Agosto 2007. wiilkeedii Abubakar oo ka warramaya wuxuu yidhi, wax xanuuna kumaan ogayn. salaaddii subaxyadaaba ii toosisay, salaadda kadibna cabbaar ayay wax akhriday sidii dhaqanka u ahayd. markaa kadib ayay sariirteeda tagtay. barqadii markay soo kici weyday ayaan ogaaday buu yidhi inay wax jiraan,
mise mar hore ayaaba naftu ka baxday. wax rafashaahi kama muuqan oo sidii ay u jiiftay weeye. waxaa loo qaaday dalka Gambiya oo lagu dhinacaasay Allah u naxariistay xaajigeedii Yaxya Juma. marwooyin iyo mudanayaal, intaa waxaa ku dhammaaday sheekadii aan ka diyaarinay buuggii xasuus qarka ee Amelia. waxaa turjumay Cabdishakuur Cali Nuur, waxaana soo jeediyey Khadar Maxamed Xaashi. waa inoo mar kale iyo mawduuc kale.